xulka qaranka Senegal ayaa iska xaadiriyay finaalka qaramada Afrika kadib markay 3-1 ku garaaceen Burkina Faso. ciyaar aad u xiiso badnayd oo ku dhexmartay wadamada Senegal iyo Burkina Faso ayaa waxay ku soo dhamaatay 3-1. Senegal ayaan weligood ku guuleysanin koobka qaramada Afrika ayaa muujisay cududa iyadoo bilowgii ku dhawaatay inay hoggaanka qabtaan. haddaba 3 gool ay kala dhaliyeen Abdou Gueye iyo Mane ayaan u xaqiijiyay Senegal inay u gudubto finaalka. haddaba Burkina Faso ayaa dadaal badan oo ay samaysay markii 2 gool laga dhaliyay waxayna 8 daqiiqadood ka hor waqtiga dhamaadka ay dhaliyeen midka gool ee kaliya waxaana goolka dhaliyay Toure niyadana u soo celiyay oo keenay inay u dagaalamaan sidii ay barbaraha ku keeni lahaayeen 3 daqiiqadood ka hor dhamaadka ciyaarta ayaa waxaa goolka saddexaad u dhaliyay Senegal sidaasna xulkiisa ugu diray finaalka qaramada Afrika. Mane gool magafahan reer Liverpool ayaana wadankiisa u rumeeyay riyadii ahayd inay mar uun finaal tagaan koobka qaramada Afrikana ay ku guuleystaan. haddaba ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 3-1 halkaas ay Senegal guusha ku raacday.